Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear brothers and sisters. Welcome to our YouTube channel Osman Puncher for learning or studying the English language. Walaalayaal kusoo dhawaada channelkeena barashada luqadda Englishka ee Osman Puncher. Aniguna waa Osman Abdulqaadir Puncher. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkeeni 58 ee guud ahaan luqadda Englishka, gaar ahaan buugga New Conceptiga farqadiisa first things first. maanta waxaan ku baranaynaa casharkeena qaar ka mid ah shaqooyinka iyo waxaan ku baranaynaa wax la yiraahdo singular and pluralis. Okay, singular nouns and plural nouns ayaan ku baranaynaa. Singular nouns oo ah magacyada keliga ah, and plural nouns iyo magacyada jamaca ah. Okay, waxaan u kala bixinaynaa laba qaybood. qayb waxaan leenahay waa regular plural nouns. waa regular plural nouns waa magacyada tooska ah, waa magacyada sida tooska ah jamac looga dhigayo ayaan baranaynaa marka hore. kadibna waxaan baranaynaa irregular plural nouns ayaan baranaynaa magacyada jamaca looga dhigayo sida dadban oo aan tooska ahayn. sida tooska iyo sida aan tooska ahayn maxay kala yihiin umar? sida tooska ah waa inta badan jamacyada lagu daro esta ama esta ama esta lagu darayo weeyaan. laakiin jamacyada aan tooska ahayn waxa weeyaan kuwa sida ay u qoran yihiin maahine si kale loo qorayo markii jamac laga dhigayo ama wadar. Okay, waxaan soo qaadanaynaa marka regular plural nouns. regular plural nouns waxaan soo qaadanaynaa magacyada jamaca laga dhigayo ee kuwa toosan ah. magacyada jamaca aan ka dhigayno ee qaabka toosan aan ka dhigayno ama esta lagu darayo ama esta lagu darayo. marka singular and plural. singular waa keli, plural waa jamac. plural waa jamac. Okay, waxaan soo qaadanaynaa clerk. clerk waa gacanyare. jamac markaan ka dhigayno waa clerks. s oo keliya lagu daraya waa jamaceeda clerks, waa gacanyareyaal. typist waa warqad qore ama warqad garaace. markii jamac laga dhigaa s oo keliya lagu daraya waxaa leeyahay typists. okay, warqad qorayaal. mechanic ayaan soo qaadanaynaa waa farsamayaqaanka gawaarida. markaa jamac ka dhigayno mechanics s ayaan ku daraynaa, waxaan leenahay farsamayaqaano oo gawaarida sameeya ah. engineer waa engineer. engineer waa engineer. markaan jamac ka dhigayno s aan ku darayna waxaan leenahay engineers. engineers waa engineero. okay, paper. paper waa timajare. markaan jamac ka dhigayno waxaan leenahay papers, timajarayaal. teacher waa macalin. markaa jamac ka dhigayno waxaan leenahay teachers, macalimiin ama teachers. customs officer waa sarkaal canshuurta qaabilsan canshuur ururinta. horaan usoo sharaxnay. markii jamac laga dhigaa waa customs officers. customs officers waa saraakiil canshuurta ururisa. taxi driver waa darawal taxi. markii jamac laga dhigayo waa taxi drivers, waa darawaliin taxi. okay, markaan waxaan arkaynaa marka nurse. nurse ama nurse waa kalkaaliso. jamac markii laga dhigaa s aan ku darayna waxaa leenahay nurses oo nurses waa kalkaalisayaal. a hostess waa soo dhaweyso diyaaradeed. a hostess oo kale waxaa u dambeysay double s. hadduu marka jamaca uu u dambeeyo xarfaha ah, hadduu ereyga singular markuu yahay keli markuu yahay hadday u dambeeyaan sida s ama double s waxaad ku daraysaa markaa jamac ka dhigaysid es. misla faham? hadduu x u dambeeyo xitaa waxaad ku daraysaa es. hadduu u dambeeyo sh hadduu u dambeeyo waxaad ku daraysaa es. pockets. pockets waa sanduuq. markaad jamac ka dhigaysid waxa waaye x u dambeyso waxaad ku daraysaa es. waxaa leedahay boxes. boxes ayaa leedahay. waxaa kale tusaale soo qaadanaynaa dish.
dish waa saxan, sh ayaa u dambeyso. markaad jamac ka dhigayso waxaa leedahay dishes, es ayaad ku daraysa waxaa leedahay dishes, saxaman. waxaan kala soo qaadanaynaa watch. watch waa saacad, waa watch, ch ayaa u dambeyso. markaad jamac ka dhigayso waxaa ku daraysaa es, waxaa leenahay watches, saacado. okay, waa isla fahmnay intaas. kuwa marka ch iyo ch, sh, double s ama s, x hadday u dambeeyaan ama kuwan hadday u dambeeyaan waxaad ku daraysaa es ayaad ku daraysaa jamaca. 10 grammar ahaan u qaadan doonaa insha Allah. laakiin hadda intaan faham inaad fahamtid isku daya. okay, wife waa xaas, waa singular markay tahay. wife waa xaas, markii jamaca laga dhigaayo wifes ayaa leenahay, oo waxa weeyaan maxaa leeyahay meesha f-ta ah v ayaan ku bedelaynaa, kadibna s ayaan ku daraynaa. wife waa xaas, wifes waa xaasas. waxaan u maleynayaa qaybtan oo regular pluraliska inaad ila fahamteen. marka waxaan hadda u gudagelaynaa irregular pluralis. ila socda. irregular plural nouns waa magacyada jamaca ah oo aan toosnayn. marka jamacyadan sida ay yihiin maahine si kale ayay isku bedelayaan markii jamac laga dhigayo. singularka sida uu yahay maahine si aanan ahayn ayaa laga dhigaya markii wadar laga dhigayo. marka waxaan u kala saareynaa singular oo ah keli and plural oo ah jamac. marka singular waxaan soo qaadanaynaa tusaalahan man waa nin, man waa nin. markii jamac laga dhigayo waxaa la leeyahay eeda ayaa waxaa lagu bedelayaa oo waxaan leenahay men. men waa niman, man waa nin, men waa niman. midda kale aan soo qaadanay waa women. women waa naag. markii naago la dhahayo waa eeda meesha hayaa ka dhigan waxaa leenahay women. women waa naago. okay, waxaan kala soo qaadanaynaa kuwa double oda ay ku jirto oo ah tooth. tooth waxaa lahaa ilig. hal ilig markuu yahay waxaa lahaa tooth. tooth waa ilig, waa t-o-o-t-h, tooth. sa ayaad ugu dhawaaqay th ta ugu dambeyso. tooth waa ilig. markaad jamac ka dhigaysa double oda ayaa waxaad u bedelaysaa double oo waxaa leedahay teeth, ilko. teeth, ilko. okay, waxaa kale inta soo qaadanaynaa ereyga ah goose. goose waxaa la yidhaahdaa waa boolonboolo. markii jamac laga dhigayo waxaa leedahay geese, booloboolayaal. meesha double oda ayaa double ka dhigaysaa. ereyga kale aan soo qaadanayno waxa weeyaan waa foot. foot, foot, foot. dhawaaqa waa soo gaabinay. foot, foot, adoo t ku dhawaaqayo. foot waa cag. cag weeyaan. foot waa cag. cagtaada oo cagta lugta weeyaan. foot waa cag. laakiin markii la dhaho food haddii la wuxuu noqonaya waa cunto. food, cunto. food. laakiin markay tahay cagta waxaa leedahay foot. foot. owda waa soo gaabine. foot, foot ayaa leedahay waa cag. markii jamac laga dhigayo double oda double ka dhiga waxaa leedahay feet. feet, cago. feet, cago. okay, waxaan kale inta soo qaadanaynaa child. waa hal canug markuu yahay waa child. markii jamac laga dhigayo waa children. children, aad ku dare aadan ugu dhawaaqay markaas. children waa caruur. waxaan kala soo qaadanaynaa person. person waa qof. markii jamac laga dhigayo waa people. people waa jamaceeda. people waa dad. person waa qof. people waa dad. waxaan kala soo qaadanaynaa mouse. mouse waa dooli. mouse waa dooli. waxaa kaloo la yidhaahdaa mouseka loo isticmaalo kombyuutarada fallaarta markii aad rabtid inaad hagtid. mouseka loo isticmaalo. mouse waa dooli. mouse esaad ku dhawaaqee mouse. haddaa laakiin dhahda mouth saasoo kaa naqana waa af. mouth oo m-o-u-t-h ah. mouth waa afka. afka ayaa waxaa la yidhaahdaa mouth. okay, marka mouse iyo mouth
ay kala yihiin. Mouse waa dooli, mouth waa af. Mouse waa dooli. Dooli waxaa kaloo la dhahaa ajiro rat. Rat waa dooli, markii jamca la dhigaa kaas asle lagu daro waxaa la dhahaa ratis ayaa la leeyahay. Laakiin mouse oo ah dooliga markii jamca laga dhigaa waxaa la leeyahay mice, dooliyaal waa M-I-C-E. Okay, mouse waa dooli markii jamca laga dhigaayo waa mice, dooliyaal. waxaa kaloo jiro louse oo ah injir, L-O-U-S-E, injirta madaxa gasha markii jamca laga dhigaa waa lice oo injiryaal ah. Lice waa L-I-C-E. Okay, waxaan kale intoo soo qaadanaynaa ox. Ox waa dibi markii jamca laga dhigaa waxaa leeyahay oxen, dibiyaal. Oxen, dibiyaal. marka intaan inaad fahamteen aan u maleynaya. Irregular plural nouns la yiraahdaa waa magacyada oo sida dadban jamca u noqonayaan, sida ay singular kiiman si ka duwan waay. laakiin kuwa kale inta badan waxaa ku daraysaa s ama es ama sida wife oo kale. wife is markaa ka dhigaysid f ayaad waxa ku bedelaysaa v kadibna es ayaad ku daraysaa. Okay, intaas waa isla fahamna marka. cashirkeeni tumi sideedaad buugga new conceptiga farqadiisa first things firstiga ayaan maanta ku jirnaa. guud ahaana cashirkeeni 58 ee Englishka. Okay, marka ciwaanka kor waxaa noogu qoran buugga what are their jobs, waa maxay shaqooyinkooda. marka waxaa laga rabaa markii lagu dhaw waa maxay shaqooyinkooda inaad dhihi kartid their, ayagu waa clerks, kuwa gacan yaryaal ah, typists, kuwa type garaacayaal ah, mechanics, engineers, papers, teachers, customs officers, taxi drivers, nurses, hostesses, housewives, inaasaas dhihi kartid oo ah guri joogtayaal. intooda badan erayadan horaan usoo baran marka macnahooda hadda uma baahnidin. waxaan kale intoo qaadanaynaa wax la yiraahdo there, ayagu waa milkmen, niman caanoolayaal ah, postmen, niman postoolayaal ah, policemen, niman booliis ah, police women, naaga booliis ah. jamac waa intooda inaad fahamteen aan u maleynayaa. Okay, waxaan halka kale kusoo qaadanaya qaar kamid ah ardaydii kasoo shaqeysay cashirkeeni 16 ee exercise-ka ee buugga new conceptiga farqadiisa first things firstiga. marka waxaan leeyahay ardayda isku dayday aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin sida wacan ay iskugu soo dayeen. maasha Allah, waxaan leeyahay dadaal wacan. marka exercise layli ayaan gelaynaa. layliga maanta qaadanayna waxa weeyaan put in gili ayaa lagu yiri. waa 1 2 3 4 5 6 7 hal aan qaadanayo 6 idinka commentiga kaga soo shaqeyn doona. marka waxaa lagu leeyahay put in gili ayaa lagu leeyahay. put in gili in the blank spaces, meelaha banaan gili. he ayaad gelinaysaa, ama waxaad gelinaysaa she, ama waxaad gelinaysaa we, ama waxaad gelinaysaa they. intaas waa isla fahmay. put in gili the blank spaces, meelaha banaan. he, she, we or they. Okay, marka waxaan soo qaadanayaa tusaalaha ugu horeeya oo ah those mean. Okay, number 1, those mean are lazy. waa la baneeyay are clerks ayaa la yiri. marka waxaan leenahay tan anaa qaadanayo, inta kalena idinkaa qaadan doontiin. waxaan leenahay marka those mean, nimankaasi are lazy, waa caajisyaal. Okay, they are clerks, ayagu waa kuwa gacan yaryaal ah oo xafiisyada howlo yar ka qabta weeyaan. they are clerks, ayagu waa gacan yarayaal. marka inta kale idinkaa kasoo shaqeyn doona meelaha banaan. Okay, that man is tall. waa la baneeyay is a policeman.
Okay. Number 2, those girls are busy. Walgubane are typists ayaa lagu yiri. Our names are Prit and Ing. Ing walgubane are Swedish ayaa lagu yiri. Look at Firi. Look at our office boy. Look at our office boy. Walgubane is very busy ayaa lagu yiri. Look at Miss Gray. Walgubane is very pretty ayaa lagu yiri. Master Pekka and Master Shaw are employees. Walgubane are clerks ayaa lagu yiri. Okay. waxaan u maleynayaa cashirkeeni maanta inaan isla fahmnay. waxaan rajayn doonaa inaad ka soo shaqeyn doontaan, commentiga ugu soo shaqeyn doontaan adigoonan cidna ka fiirsan. istijaabi hore haddii aad cashirada hore la socotay waad ka soo shaqeyn kartaa adigoo aanan cidna ka fiirsan. anigoo teacher Osman Abdulqaadir Pancher waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.